bulshada ku nool degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag ayaa maanta isugu soo baxday mudaaharaad ballaaran ay ku mudaaharaadayeen maamulka ka arrimiya degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag waxayna mudaaharaadayaashaasi ay markaas ku dhawaaqayeen doonayno maamul xumo doonayno cadaalad darro waxayna ugu dambeyntii isugu soo biishubteen xafiiska xaqsoor ee dhawaanta laga hirgeliyay degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag ay markaasi ay furatay guurtida كنا المقالات نعلب يوجا مركز ولا بحي حقصور كجانا تلانيين معلمه يقدم بيه سيدي وحنا لو قبل دل ها مامل ككتر عبد وسكدن دومر يو رج كدحو مقالات كورني ككورني بالولا صول لابتي شعبكي أو كعبنا هي مامل حمادة كتير تمقالة حفيزك حقصور ومدى صورن ووسبان تاي تنتهذا هذا مستقبل كذا إني كتشوف بعد ركتان ير عروض إسكندر وعيال وحول بواجهوجان لا تكاسو يسوون صوب حي وحق دون حق يسودوري وحق صور تي والله أركاه عالم كبدها يدبده والله أركاه سيدو وحيهين وعيت هاي عدالة حمو يدبه كتير تي ديجان كا عيال بوف كتير سنقبل كسلاك أيام مظاهرات كذا كعي oo laga soo horjeedo maamulkii hore ka jiray deegaanka haddana ay tahay inaanu u furanay xafiisyo cusub iyo maamul aanu hadda ku guda jiro inaanu wixii hore wax kaga bedelo waa sidaas weeye xaqa iyo cadaaladda ayaana deeqda corruption baa jira nidaam la yiraahdo capitalism baa jira waxaasi oo dhan baa laga mudaharaadaya ummadii waa haraaday waa rafaaday ummaddu waxay u baahan tahay cadaalad hay'adahan waxaanu leenahay ma soo gali kartaan ilaa amar dambe xaq Allah u heliyo cadaaladda Allah hayna iimaanka Allah hayna ku dilo ku nooleeyo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waxaa leeyahay magaalada wax ka taagan cadaalad darro aad u weyn oo ku baahday xididana u noqotay waxaan doonaynaa in xaq loo heliyo oo dulmigana laga saaro waxaan leenahay in isku tashano aan ka saaro waxa kan magaalada ku jira ee cadaalad darrada mudaaharaadkan ayaa ahaa mudaaharaadkii ugu ballaarnaa ee maamulka ka jira degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag lagu mudaaharaado waa Axmed Cabdilaahi Ciise Axmed Cashuur telefishinka caalamiga Soomaali Cable TV degmada Ceelbe gobolka Sanaag